markaasay tiri maxaa aniga aqligeyga waxaan ahay ruuxii aqli ku keenay oo jin isku soo riday baan ahay asna uu soo bood wuxuu yiri anna soo ma iibo yiri kii adiga ku quraamiyay oo macallin iska dhigay sheekh ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waxaad naga daawanaysaan TBB Family. waxaa idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada. barnaamijkeeni maanta wax kale ma ahan waxaa idin wada fanaankeenna alfanaan dayax dalxiis ah u taqaanin. soo dhawaad alfanaan dayax dalxiis. marka intaa muuqaalka gudgalin waxaan idinka codsanaynaa please like share comment waa dhankiina. marka barnaamijkeena maanta waxaa waaye sheekooyin qosol badan ayuu noo wadaa fanaankeenna. sheekooyinkaas qosolka badan ayaa idin la wadaagi doonaa. idinkana waa qosli doontiin anna waa qosli doonaa. marka waxaa soo dhaweynayaa fanaankeenna alfanaan dalxiis ma ahayd waxaa waaye alfanaan dalxiis. soo dhawow. aad iyo aad ugu dhawahay. marka hore waxaan leeyahay asxaabta kuwana daawanayay iyo meel walba ay joogtaan waxaan idin salaamay. waxaan igu salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta aad ugu dhawahay walaalkay Yakiboy. waa ku mahadsan tahay wareysiga aad ila yeeshatay sidaad ii qiimeyseen oo ii qadariseen. marka waxa barnaamijkeenu uu yahay adiga macnaha adiga noo qaabaysan uu yahay sheekooyin aad igu soo martaqaaday oo leedahay sheekooyin badan oo waxaan hayaa oo qosol badan kuwa xamaasad leh kuwa la yaab leh. okay alfanaan sheekooyinka aad noo hayso miiska noo saaran aad noo wado bal nala wadaag shacabkaada la wadaag anagana waa kula fidhiyaa waa maqli doonaa. soo dhawow fanaani. aad iyo aad ugu dhawahay. sheekada koowaad waa sheeko oo la yaab leh oo qosol badan oo aad ula dhici doontiin. waa sheeko la yaab leh oo qiso dhaba weeyaan. waxaa jiri jiray laba qofood oo isjecel. sheekadii baa bilaawtay laba qof oo isjeclaan jirtay. marka meel isku soo mareen waa waayeen. mar walba isku imaatankooda fashilmi jiray ilaan hore loo dhahay cadow jecel ma waayo. marka sidii saas u ahayd labadii qofood. marka midkood baa maalmaha kamid aqli buu keenay. gabadha waxay tiri telefoon ay ka wacday waxay tiri walaalow qorshe noocaas waxaan qorshaan ku hayaa. markaasuu yiri ii sheeg qorshaha. markaasay ku tiri qorshaha aan ku hayo waa qorshe la yaab leh. gurigeen agtiisa soo maraysa maalin jimcaha gurigeen agtiisa soo maray aniga jini isku soo ridaa. marka jini isku soo rido adiga guriga agtiisa soo maray khamiisa soo xirinay maalin jimcaha waaye. marka guriga markii soo martid markii jini isku rido adiga macali kulay qofka markaas guriga qolkaas ku soo galay adiga markaan jini isku ridaa adiga qolka igu soo xireynay adiga qorshe noocaas aan ku wadaa ma sameynaysaa. wuu sameynaa waa sameyn doonaa buu yiri. wiilkii sidii ba isku ogolaadeen. saalaan wiilkii wuu sameeyay qorshihii waa soo baxay. gabadhiina baak markii soo baxay markii way sameysay. gabadhii jini isku riday waalidkeeda way soo kala carreen. guriga waxaa jooga aabaha kaliya jooga. marka aabaha kaliya joogo gurigii qof kale ma joogo. aabihii gabadhiisa marka ninkan wadada maraay wuxuu u maleeyay nin macallin ah. kaalay gabadh ila qabo ninkan waa soo orday. wiilkii wuu soo orday gabadhii sidii ku leeymaade. gabadhii markuu ugu imaaday gabadhii sidii qolkii guriga soo galay. oday goolkii kuwa saas laga dhali guriga soo galay. odayga goolkii kuwa saas laga dhali macnaha wiilkii iyo gabadhii sheekadii kuwa saas ugu horgashay wuu soo galay. markaas buu yiri alla gabadha maxaa ku dhacay aabba maxaa ku dhacay jini soo degay waay gabadha maxaan ku ogeedeen waxaan ma jirin waay hadda leeyahay waan ku arkeenaa gabadhii sidii lagu soo waday. markaas uu yiri aabba gabadha kuleelkan iyo aan ka badno banaankan aan geeyno qolka. aabbihi markuu uu dareemay isla markii goolkii labaad soo dhow aabbihi wuu soo waday qolkii la galay. aabba markaas waxaa loo diray waxaa la bax inoo keen gabadha macnaha caani inoo doon. qolkii gabadha keenay markaas uu shalooday qofood sheeka isku bilaabeen. markaas labadooda mid kamid ah soo booday. gabadha waxay tiri alla aqli badanida aqligayga macnaha ka aqli waa ka aqli badanahay. markaasay tiri maxaa aniga aqligayga waxaan ahay ruuxii aqli ku keenay oo jin isku soo riday baan ahay. asna uu soo bood wuxuu yiri anna soo ma iibo yiri kii adiga ku quraamiyay oo macallin iska dhigay sheekh ah. waa goolkii labada isku dhilinay. markaas wiilkii hadana wiilkii soo bood wuxuu yiri hadana kii aabaha caano u diray soo miyay. waxa dhici doon maqal aabihii wuxuu ku jiraa sariirta hoosteeda ku jiraa uu soo boodi doon wuxuu leeyahay markaas uu leeyahay gabadha macnaha anna aabaha soo caano uma dirin oo soo ma dirin aniga soo kuma soo harin. aabaha soo booda idinkan aniga aqli badan oo sariirta hoosteeda la galay waay. oo maama bixin buu leeyahay aabihii soo booday wuxuu leeyahay aniga aqli badan idinkan naftirkiina sariirta hoosteeda la galay caanidiina idinka sheegayso ma baadin waay. qorshihiisaas ku bari gabadhiina filinkeesaas lagu ogaaday. tan waa qodobkii koowaad
sheekadii ugu jirad oo macnaha qosolka ugu gaabneed waaye marka asxaabta waa ka waxaan leeyahay asxaabta mar koowaad iyo mar labaad dhankiina ha iloobina like share comment ya follow na soo dhaha ha iloobina ma garateen sax waay dhankiina ha iloobina intaas kaliya noo macnaha nagu qaato ma garateen waa la isku qaadanaa sanadkan anaga waan dhigtay hadaan team bay dhow boos dhulkaana dhigteen waxaas iskuma barin waxaas kuma ogeen ma garateen kor noo qaada idinka shacabka idinkaana qaadi karo idinkaana dhigi karo ma garateen idinkaana geyn karo kor hadaa reer baydhabatiin hadaa reer xamartiin Soomaalina hadaa tiin idinkaana qaadi karo idinkaana dhigi karo dara idinka kor nageyseen ya haddan idinka kor nagey marka tookadan waa inaad noo qaadaan sidii darad noo qiimeyseen ka dar noo qiimeysaan naga daa asxaabtano noo macna noo fuuteysaan isku day marka saasaan sheegi doonaa noo fuuteeya marka alis ogaado macna noo isgarshad macna inaad isgartiin waay okay barnaamijka waxa waay barnaamijkii sheekooyinka qosolka badan barnaamijkii hore u socdo waaye marka dhaxda lagu dhaafay hadda waxa is dhahay barnaamijkan bal soo kici waa socda asina barnaamijka tijaabi codkaagan asina waa uu socda ama waa socda saarabtid u dhigo marka barnaamijyadaas dhan way socdaan shaqada marka dib loogu soo laabtay marka shaqadeeni dib ugu soo laabanay toosa u wadi doona idinkana nala socda barnaamijkeeni maanta halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa dhanka kaamiradan waxa inoo hayo walaalkiina Adkay Boy sidaas iyo nabadgelyo